saxafiga weyn iyo weliba samafalaha weyn Cabdimaalik Muuse Coldoon ayaa markii saddexaad lagu xidhay Somaliland. Xidhitaanka imika ayaa waxa uu taagan yahay inuu Cabdimaalik Coldoon ka hadlay arrin jirta oo aan indhuhu ka qarsoomaynin. Cabdimaalik Coldoon ayaa sheegay in iskuulka Abaarsatage uu yahay meel lagu faafinayo diinta Kiristaanka iyo waxyaabo kale oo ku hoos jira. Cabdimaalik ayaa markii uu ka hadlay arrinkani oo uu ka dhawaajiyay lagu xidhay. Maxaad uga hadlaysaa arrinkan? Waxa baryahan dambe aad loo hadalay oo magaalada Hargeysa ku sugnayd gabadh loo yaqaan Pastor Issa Joy. Issa Joy ayaa ah gabadh faafisa diinta Kiristaanka taasi oo qayb ka ah waxa loo yaqaan missionaries-ka. Issa Joy ayaa waxa ay magaalada Hargeysa xadhiga ka furtay jaamacad loo yaqaan Barwaaqo University. Jaamacadan ayaa ay ugu talagashay in ay dhigtaan dumarka oo kaliyata. Waliba waxay qayb ka tahay madaxda maamusha iskuulka Abaarsatage ee ku yaala galbeedka magaalada Hargeysa. Haddaba Cabdimaalik Coldoon ayaa arrinkan ka hadlay kabacdina loo xidhay.